safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku yimi magaalada Laascaanood ayaa waxa uu daaha ka rogay in aanay Somaliland waxba gacanta ugu jirin. Arrimaha ay sida weyn tallaabadani daaha uga rogtayna waxa koow ka ah in aanay khalkhal gelin karin diyaaradaha oo hawadeeda la iska dulmarayo. haddaba faragelinta intan le'eg ee ay Soomaaliya samaysay maxay ahayd inay kaga falceliso Somaliland? maxayse kaga falcelisay xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro? ma jiraan wax tallaabo ah oo madaxweyne Cirro u qorshaysan saacadaha soo socda oo ficilka Laascaanood ka dhacay looga jawaabaya? maxayse noqonayaan mahadhooyinka waaweyn ee uu reebayo safarka Xamse Cabdi Barre kuwaasi oo Somaliland u gelaya sooyaalka? waxani maaha wax la eegan karo. Laascaanood waa in sida ugu dhaqsaha badan looga soo xoreeyaa Xasan Sheekh Maxamuud ka xamar. erayadani waxa kaga falceliyay oo dareenkiisa ku cabiray Faysal Cali Waraabe. golaha sharci dejinta ee Somaliland ayaa isaguna waxa uu soo saaray waraaqo iyo qodobo ay isaga oo ka muuqurta safarka Xamse Cabdi Barre u dhaantay, kuwaasi oo aan dhammaanba waaqica haatan taagan waxba ka taraynin amase ahayn jawaabihii laga sugayay maadaama oo ay yihiin golihii sharci dejinta ee Somaliland. qodobadoodana waxa ugu waaweynaa inay taageersan yihiin go'aanka ay ka qaadatay xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro safarka Xamse Cabdi Barre, taasi oo ay ku bogaadinayaan iyadoo aan ilaa iyo haatan la ogeyn tallaabo ay qaadayso amase tallaabo ay qaaday oo lagaga falcelinayo safarka Xamse Cabdi Barre uu ku yimi magaalada Laascaanood si nabadgelyo ah, taasi oo ay dabaaldeg iyo damaashaad ku soo dhaweeyeen dadka degmadaasina. qodobka labaad ee golaha sharci dejinta Somaliland soo saaray ayaa ahaa in la joojiyo wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya, kuwaasi oo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi uu xariga u jaray oo aan waqtigaas wixii ka dambeeyayba socon. xildhibaanada warmurtiyeedkan soo qoray ayaana waxa ay u muuqdeen kuwa berigaasi seexday oo intii ka dambeysay hurdo ku jiray, maantana halkii ay xilligaasi seexdeen ka soo kacay oo aan la soconin xaaladda diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee Somaliland iyo u dhaxaysa Soomaaliya. wada hadallada ay maanta warmurtiyeedka ku soo saareen xildhibaanada tani ayaa ah kuwa 2 sannadood ka hor ay Somaliland joojisay, iyadoo ay shacabku si weyn isu weydiiyeen waxa ay la shir yimaadeen golaha sharci dejinta ee Somaliland. reer Somaliland oo si weyn isha ugu hayay xukuumadda dawladnimadu ay ku taagan tahay iyo dadka ay doorteen waxa ay kaga falceliyeen iyo tallaabada ay qaadi doonaan ayaana arrintaasi ay niyad jabisay maadaama oo ay tahay mid aan kaba hadlaynin ama ka turjumaynin waaqica maanta yaala. hanjabaadii ugu adkayd ayay xukuumadda Somaliland habeennimadii xalay ahaa marisay warbaahinta iyadoo oo ku qoran luuqadaha qalaad sidoo kalena beesha caalamka waxa ay ogeysiisay inuu mas'uul ka noqonayo Xamse Cabdi Barre haddii uu yimaado Laascaanood wixii ka dhaca, balse waxba kamay dhicin ee si nabadgelyo ah ayaa loo soo dhaweeyay. fila Soomaaliyana tallaabadii u qorshaysnayd ayay qaaday waxana ay ilaa iyo haatan ka joogtaa guul, inkasta oo saacadaha soo socda aanay ahayn kuwa la saadaalin karo waxa dhici kara. mahadhada ugu weyn ee Somaliland maanta hotaala ayaa ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo degmada Cidhifka Bari ku taala ee xadka Soomaaliya la leh ee Laascaanood kaga noqda nabadgelyo, iyo iyada oo aanay wax tallaabo ah ka qaadin ficilkan daandaansiga ah ee lagu soo xadgudbay soodimaheedii cirka iyo kuweedii dhulkaba. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ila wareedyo hoose oo ay xuquuqaal ka helaysaa waxa ay sheegayaan inuu wato 2 diyaaradood oo nooca dagaalka ah, kuwaasi oo ah nooca aan duuliyaha lahayn dhawaanna waddanka Turkigu uu ku qalabeeyay, waxana ay diyaaradahaasi gaaf wareegayaan fariisimada ciidamada Somaliland dushooda iyagoo gaarka haya tallaabo kasta oo ay qaadaan sidii ay uga hortagi lahaayeen. mahadhadii koobaad ee taariikhda sooyaalka u gashay Somaliland ayaa ahayd 25kii bishii 8aad ee 2023 markii hadcad laga dareeriyay ciidankii Somaliland magaalada Laascaanood, iyadoo in ka badan 300 oo nin ah gacanta lagu dhigay oo ay ku jiraan saraakiishii ciidankaasi hogaaminayay. tanina waxa ay noqonaysaa tii labaad inkasta oo weli laga falcelin karo oo xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro aan la ogeyn tallaabooyinka ay qaadi karto saacadaha soo socda. wixii wararahee ka soo siyaadana waxa aynu ku soo qaadanaynaa warbixinaheena su'aadan. ma u baahan tahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumtiisa? Machadka Luqmaan Al-Hakim Islamic Online. machadku maadooyinka uu bixiyo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo axkaamtiisa, barashada hingaada iyo qoraalka, barashada ducooyinka, barashada xadiista nebiga, barashada luqadda carabiga, barashada luqadda Soomaaliga. haddaba si aad iska diiwaangeliso kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.